adiga meesha indha ku aragtid ma taagan tahay le mar walba isoo qortiin laakiin la fiiriyo sirta ka dambaysa bal arka ciidankan meesha indha ku arkaan waxay isoo wada qoraan toorxayaa kaale kuleetay soo qabanaya maanta waxay noo soo qabteen mid ka mid ah gabdhaha caanka ee social media isticmaal dhaheen bal indhaheeda ka soo hadal waa lagu qasban yahay waa kana muuqaalka irsada Amira Qurun indhaha meesha cad ayaa gaduud yar ah mana garanayso waxayna hoos ku soo qortay adoo iska jooga hal indha iska gaduudato iyadoo ku xanuuneen maxay tahay isoo sheega jumladaas kaliya hoos ku soo qortay ayaa wax badan naga caawinaysa muuqaalkan inaan ka hadalno oo tala bixinna aan ka siino in ay xanuun laheen cuncun iyo wax kale raadis marka ay ka dareemeen ee kaliya gaduudkaas ka dareemayso meesha waxaa ka baxayso noocyo badan oo indhaha gaduudka keeni karo tusaale ahaan oo kale allergy oo kale meesha way ka baxay cuncun iyo waxyaabahaas dareemi lahayd hur sidoo kale waxyaabo waxa ka baxayo oo fara badan oo indhaha ku dhaco oo kalarka yar gaduud ka dhigo su'aasha ay soo weydiisana maxaa keeni karo horta isha qaybta hore sida bacdan oo kale ayaa ugu horeys wax ugu horeeyo isheena oo qafiif ah waxaana ka sii dambeeya cadaanka caadiga aragtid dhexdiisna waxaa ku jira xidido yar yar oo dhiig wado xididaas mar qaar waxay keeni karaan inay qarxaan ama inay dilaacmaan kadib ay dhiig yar ay sii daayaan adartan Amira Qurun dhiig yar oo qafiif ah markii qaar waxay noqon kartaa xataa dhiig xinjira inta badanna wax dhibaato ma lahan xanuunna ma qofka lama socoto balse waxaa laga yaabaa xitaa markaas oo iska socdo oo muraayadna isku fiiri bas uu ka warhelaa inay xogaa yar gaduud oo soo yar galay markii qaarna asoo iska socdo qof ka soo horjeeda ayaa wuxuu leeyahay haye indhaha gaduud waa mise casaan waaye sidaas uu inta badan uu ku warhelaa ilaa goormay marka sidaas ahaanaysa inta badan hal isbuuc ilaa 2 isbuuc ayaa saas ahaadaa waxyaabaha inta badan keeni karo waxyaabo yar oo fudud way isaga badan yihiin waxyaabo aad u waaweyn waxyaabaha fudud waxaa ka mid ah oo si fudud indhaha sidaas ku noqon karaan in hal mar hindist qufaca si xoog ah u qufacdo way keeni kartaa marka qaar xataa shay xoog u qaado culays u qaata marka qaar xididaas yar inay qarxaan ee dhiigaas meesha ku sii daayaan keeni kartaa marka qaar xaalad sida qodadka kale mataqaana sokorto kale mise dhiikarka kale marka qaar sidaas oo kale way lagu arkaa xididaasna iska qarxaan laakiin gabadha waxay u badan tahay in uu waxyaabo yar yar sida qufac oo kale ama sida waxyaabo yar qaado kale marka xataa in ay qabaysanayso kale waa laga yaabaa inay la kulanto arintaas marka waxyaabahaas waxyaabo yar oo fudi karo in wax in laga walwalaysan ahayn laakiin hadii ay ku aragto hur cuncun in isha casaato in ay ka dareento ishiina yar xanuunayso ama in iftiinka dhibsanayso sidoo kale hadii ay ku aragto in arag shuuc yar ka galaayo waa marka loo baahan yahay dhakhtarka booqdo oo xaalado kale markaas ay noqon kartaa oo in laga baaro lagana daaweeyo u baahan marka waxaan rajaa muuqaalkan inaan ka faa'iideysteen haddii aad daawanaysa adiga Amira Qurun waxaan rajaa inaad ka faa'iideysatay ana hilmaamin muuqaalkan like gareysaan gambareelkana aad sheetaan si aad u heshiin muuqaalo joogta oo la talin caafimaadka indhaha iyo aragga intaas ayaa muuqaalkan ku soo gabinaya meel walba adduunka joogtiin waxaan idin rajaa caafimaad iyo indho fiyow